marka shan cilmi in la barto yaa inagu yeedhaya eega markaan leeyahay cilmiga waqti badan waa la haystaa ikhwaani fillah waqti badan waa inaga khasaaraa jirta culamadiina way joogaan shan cilmi ha la barto cilmiga cilmi luqada carabiga ha la barto luqada carabiga wax adag maaha naxwaheega sarfigeega macallin baad oranaysaa sheekh muuse waxaad oranaysaa dawro noo samee 2 cisho ah 3 cisho ah naxwaha noogu dhamee jusul awalkii naxwal waadix yaraa haddana sanadka jisaanigii amba ujruumiyadii wax luqa carabiya waa muftaaxi diinta weeyaan iminka matalan suuratu ljumca waxaa ku qoran idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumcati fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbayc dalikum khayru lakum in kuntum faidaa qudirat fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah culummadu waxay dhahdaan labada amaree hore waa waajib labada amaree dambena waa mubaax iyo sunne maxay ku kala saareen amar waa amarun sooma ilahi wuxuu ihi idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumca maxaa fascaw dikriga ilaah u yaaca okay waxaa dhihi hadduu eedaamo salaada jumca muadinku maxaa dhacay kula shayin maa cada salaati waa xaaraan inaan qabanno waa xaaraan haddii kalo aadaanu thani u dhaco okay fascaw ilaa dir lah baa laga soo qatay wadaru lbayc baa laga soo qatay wax baycii ka taga yani waxay karta baycii ka taga shaqadii ka taga wax walba ka taga waa amarkaas waa waajib xagidan waxaa dhihi haddii salaaddii la tukado maxaa dhihi fantashiruu fi lardi dhulka taga kaca culummada waxay dhahan waa mubaax kii shaqa u taana oo bixi kii shaqa olina muxuu tagi aqligiisu ka tagi hadday shaqaba kuu olin waxaad haysan jirin maxaad samaynaysaa gurigaas ka tagaysaa waxaa la yidhi markaa halkee laga keenay af carabiga laga soo qaday waxaa dhahdaa idaa jaa alamru bacda annahyi yufiidu libaax hadduu amar yimaado nahyi kadib muxuu faa'iideynayaa mubaax oo amarku nahyigu muxuu ahaa taxriimu lbayc in la shaqeeyo salaadii la tukanayo nahyi ba ahayd okay amar baa yimid bacda nahyi waxaa la yidhi fantashiruu fi lardi maxay faa'ideynaysaa baa la yidhi mubaax waa af carabiga caynkaas waxaan kaa yidhi laa takhruj min almasjid maskiisa ka bixin anoo de xoog kugu lawayaan anoo xoog laway iska socona dad aadan laa takhruj min almasjid baan kaa yidhi bacda in yarun baan kaa yidhi iska soco waxay dhahdaa dad doon iska soco haddaa doonna iska fadhi saasaa laga fahmaya af carabiga laga fahmayo marka ikhwaanii fillah marka af carabiga waa muftax marka af carabiga barashadiisu waa muhiim nebiguna calayhi salaatu wasalaam qur-aanka lagu soo dejiye ilahi muxuu ku tilmaamay maxaa dhi wahada maxaa dhi qur-aankani qur'aanan carabiyan hayra di ciwaj waa qur'aan carabiya qur-aanka af soomaali maaha qur-aanku af faransiis maaha qur-aanku af ingiriis maaha weligaa ayaa allaha tarjamada soo qaadata traditionka ingiliishka saa u furfuro alxamdu haddaad akhrita lilahi rabi alcaalamiin waxaan muxuu ku hadlay af yaroo ciyaar ciyaar baan moodi anuu af soomaaliga arkay markii lagu turjumay qur-aanka wadaa waxa af yaro waxa moodaysa wax caruura faransiiskana sida laga sheegay uu ka daray ingiliiskuna uu ka daray baa ma dhici karto inaa qur'aanka loo turjumo af kale waxa la turjumaya waa maxay waa macanihiisii waxaa la dhahdaa tarjamatu macaaniihi waxaa la turjumay macnihii qur'aanka laakiin qur'aanka lama turjumi karo oo ilaahay yaa turjumi kara hadalkiisa qolma turjumi kara marka taas waa midda koobaad waa luqadda carabiga waa in la barto cilmiga labaad in la bartaa waa maxay ya cilmiga labaad ee in la bartaa waa cilmu tafsiirka kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala sideen u fasirnaa sideen u fahanaa tafsiir baan ku fahmaynaa waa inaan baranno isagana waa cilmi isaguna maaha muxaadaro maaha waa cilmi cilmiga saddexaad ee muhiimka waxa weeyaan in la barto axaadiista rasuulka sallam oo loo barto si tadaruja xadiista 40 laga bilaabo saalixiinka lagu xigsiiyo buluuqul maraam kitaab dhado lagu xigsiiyo wahaakada oon la degdegin dhalinyaro maandhowta meel ku ururtay baa iyo waxay yidhahdeen sheekh kitaab ma noo bilaabay oo maxaa ni akhriyaa baan ka yidhi dee sheekh fatxulbaariga waxaad akhrinaysaa bay yidhahdeen saxiixu muslimka anaa ba saxiix muslimka fahmayne saxiix muslim ha saxiix muslim ma la mari karaa ha waa la mari karaa laakiin saxiix muslim yaa marsan karaa saxiix bukhaari iyo marsan karaa weliba fatxulbaariga ka akhrisan karaa waa masaa'il daqiiqa ku jira culuma akhrisan karta ha degdegin markaa xays 40 ka dhamee isla dhamayna soomayn ku xisi markaa riyaad saalixiin saalixiinka acab ku xisi buluuqul maraam ka dhamee haddaad doono shuruuxiisii subul salaam iyo saayar u socod aayar qoyar u socod qodox maxaa dhada
ma muddo ya daarta hoosta ka soo dhis marka xadiiska cilmigaa waa muhim jira arrinta saddexaad oo in la bartaa waa fiqiga afaraad baa jira axkaamta sharciga ah fiqigiisa waa inaan barano xalaalun wa xaraam waajibun wa sunna mubaaxun maxay fiqigu waa cajiib mogtahay noloshii oo dhan baa ku jirta ayaan dhaweyto waxaan akhriyay kitaab mana dhammaanina waxa cajiibka anuu fiqiga jecel fiqigu ma dhammaan ilaa qiyamu dhacayo kolba kitaab baa laga qoraya sheekh aan aad u jecelahay oo la dhahdo waa kurdi cali alqara daaqi la dhahdo iyaa 25 sano wuxuu dul fadhiyay kitaab wuxuu u bixiyay fiqhu lmiisaan ya maxaa tira miisaanka maqbata fiqhu lmiisaan maaha miisaanki wax lagu kala gadanay maaha suuradda qur-aanka ee suurat lxadiid ilahay wuxuu kusoo dejiyey maxay ahayd ya ambiyada markuu ilahay soo daray arsala rasuluna bilbayinaati waanzala macahum alkitaaba walmiisaan kitaabka maxaa la socda miisaan baa la socda kitaabku hadduu miisaan waayo wuxuu soo saaray shabaab shabaabka dadku waxay la yaaban yihin waa miisaan la-aan shabaabku waa miisaan la-aan weeyaan marka waxaaba kasoo bixi waxaa kasoo bixi kuwa ka daray annaku markii ugu horeysay qaacidan la yaabanin daacish baa imatay daacish baan la yaabanin shabaab baa yimiday buku maxaa dhaha buku xaraam baa yimiday tuku xaraam baan ogi waxaa de garan baan ogi ilaahay naga qabtee balaayadan waxaa samaynaya waxa weeyaan laba qolaa samaysa mukhaabaraadka gaaladuna way sameyn ragga gaalada markaan leenahay yani amerikaanka iyo yuhuudda iyo mukhaabaraadka carabta sacuudiga iyo masar waxaan sameeya inta la sameeyo berigii ay fiis ku qabsadeen jabhaddii looran jiray algeria ay qabsadeen si dadka loo nacsiiyey islaamka waxaa la sameeyey gadhadh mukhaabaraadka faransiiska soo sameeyey waxaa lagu soo sameeyey sirdoonka faransiiska jendaarka faransiiska soo sameeyey waa gadhadh waxaa loo gelinayay mukhaabaraadka algeria markaa bay dadka gowracayen allahu akbar laa ilaha garhku taalenka dadkii sidaan bay dhahdeen war wadaadkii noo xadiisayba dadku la dheemi karaa laa xawla walaa quwata ila billah waxay noqotay dadkii diintii bay naceen khalaas annagana soomaalidu min 90kii ilaa 2015 waxay soomaali ku qanacsanayd xal waa wadaad xali waa wadaad keyrkiina uu fashilmay adduunku way maqleen raggii caddaaya waxaa la daba socday wadaadka ahaa shabaab u sameeya ku milidhe maanta wadaadka maxal baa maanta waxba looma dhiibto waxaa maxaa keenay waa la nacsiiyey waa khuto jahanamiya oo la dhigay khutadkaa baa laga shaqeynaya okay ikhwaani fillah sheekha muxuu qoray wuxuu yihi fiqu lmiisaan markaan qorayay 25 sano aayaddaa madaxa iga qabsatay muxuu ilaahay u yidhi waanzala macahum alkitaaba walmiisaan maxaa kitaab iyo miisaan la isku garab dhigay oo looga daba keenay liyaquuma annaasu bilqist ilaahay muxuu suurat raxmaan u yihi wawadaca almiisaan uu u yidhi markii dambana anlaa tadqow fi lmiisaan walaa tuksiruu almiisaan limaada buu yihi waxaan oo dhan buu ka daba tagay 25 sano sheekha fikiraya waa mujtahid buu gaaray wuxuu qoray markaa kitaab uu bixiyey fiqhu lmiisaan oo fiqhiya wuxuu ka soo saaray adduunka dhan ilaahay inuu miisaan ku dejiyey qur'aankan miisaan ku dejiyey qofka inuu fahmo u baahan waa inuu horta miisaanka fahmo qof bilaa miisaana ma soconay marka fiqhigu waa muhim inaad diinteena fahmo haddaan diinta fahmi weyno halis baan ku jirana walidaalika waxaad arkaysiin maanta adduunka dhacay waa maxay waa fahmi la-aan amba waa fahmi xun amba waa fahmi la-aan weya fahmiga xun baana ka xun fahmi la-aanta maxay ka yidhahdeen reer nebi shucayb maxay ka yidhahdeen maa nafqahu kathiira mima taquul uba hadlayaa se u fahmin ya waxay ku waxaad leedahay waxba kama fahmayno maa nafqahu nebi muusena ilaahay u baryo wuxuu ihi liyafqahuu qawlii rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxalul cuqdatan min lisaanii yafqahuu qawlii soomaalidan waxay tiri ninasi u yidhi ninasin u qaadi iminka inteennaa oo dhan oo hadal wada dhegeysanaa baxaynaa waxaan leenahay wadaadku saa buu lahaa war isaan buu ilahay naga dabaashaada wallahi saasuu lahaa kani kale ninba siduu iskaga dhaadhiciyey marka miisaanka weyaan haddaa miisaan leedahay si mid aan wada fahmaynaa fiqu lmiisaanku waa muhim sheekh aadanow marka cilmiga afaraad oo baahanay waa maxay waa fiqiga weyaan cilmiga waa muhim
marka fiqigu waa usuushiisii qawaaciddiisii ninba intaa kan maanta qawaacidda aan dhigana waa muhiim qawaacid baan baranaa sheekh kutub noo marnay waa muhiim sheeka ma wuxuu noo marnay waa wixii diinta laga soo saaray saa waa laga soo guray waa laga soo guray waa laga soo guray waxaana looga dhigay fiqi ya ay dowlad islaam hadday qaadato shariicada islaamka say u dabaqi waa fudeed maanta fiqiga bay ku noqonaysaa fiqiga ku qoranta maaha kuma noqonayso hadallada shabaab iyo balaawiyinka kuma noqonayso fiqiga ku noqonaysa fiqiga fiqigii baa iska yaalla axkaamtii baa iska taalla mufasala weliba waa la taqriiniyey iminka qaanuun baa laga dhigay dad buu ilahay usoo jeediyey majaalis fiqiyaa la sameeyey sacuudiga laga sameeyey kuwait baa laga sameeyey masr baa laga sameeyey bakistan baa laga sameeyey malaysia laga sameeyey turkiga laga sameeyey yani waxaasoo dhan waxa weyaan waa la taqriinaya maada maxaad u baahan tahay xeerka qoyska ku yaala waa mucad waxaan u baahan tahay xeerka waxaan bahay baca mushtarka waa mucad maxaad u baahan tahay waxaan u baahanahay xeerka maaragtay cilaaqaadka caalamiga ah xiriirka caalamiga waxaan wax kas dastuur islaamiya inaan sameeyo u yaala fuqahadii ma fadhiisan oo ijtihaadiyaan يفكرون يطورون marka taasina waa afraad ban cilmiga shanaad oo baahna cilmiga fikriga noloshan socota islaamku suuga jawaabaya waa mawduuca waa muhiim noloshan socotay maalin walba wax imanaan soo uga jawaabna ya fikir islaami laga jawaabaya ya kitaabka waxa la dhahdaa laba kitaab baa dhahdaa adduunka maanta way gilgileen kitaab yurub buu gilgilay kitaabna adduunka oo dhan buu gilgilay kitaabka yurub gilgilay waxa dhahdaa waa kitaabku qoray ninka Murad Hofmann wuxuu ahaa ambasadeerkii safiirkii dowladda Jarmalka ee Morocco wuxuu qoray kitaab uu bixiyay al-islaam ka badiil islaamku dadkan wareeray isaga xal u ah maanta wuxuu islaamku xal ma islaamku dadku wareeriyay waliba may caalamkan wareeray islaamka u xala uu islaamay uu qoray kitaabka uu dhigay kitaabka loo maandud qoray dariiq ila ma ka dhado sheekh ku dayday kitaabka hazza Europa Yurub oo dhan ka dhigay علي عزت بكوفيتش مدحوينه ودنك بوسنيا وهو قرأ كتابه بحي الإسلام بين الشرق والغرب إسلام كي أودحي على برقة يا قلبيتك أو فكر وين هذا الكتاب هز العالم دوني دون مقرفني دوني دون مقرفتي مركو قرأ شخص كتابك واحد يكتب بكل اللغات وذاتك كتابك مركو دميي أحد العلماء بأخرية كتابك أو فيلسوفك مصر هوينا يا عبد الوهاب مصير هذا وحول كتابك هدان اخرين لها انت ان كتبت قرين وحو يتري لها wax badan maanta inta aan soo duurayay buu soo qaban lahaa oo soo wadin lahaa nin kalena wuxuu yiri arjubu inuu ilaahay ninka Ali Izad ayaanta qiyaamaha ilaahay ku galiyo jannada kitaabkan qorista uu qoray inuu jannada ku galo iyo ilaahay ka rajaynayo tabaaraka taala marka shanta cilmi aan u baahanahay shanta cilmi waxay nooga baahan tahay waqtigeena aan nidaamino waqtigeena organisayno waqtina aan shaqaysano waqtina aan ciyaarka korsano waqtina aan wax barano yaan u baahnaa miskiidka wax ku barano madrasada wax ku barano la is ururiyo la isku tago la yiraahdo war seminar han qaadano oo nolosha waa la habeeyaa nolosha man la khudata lahu فالآخرون يسمعون له الخطط مرة قفك أن بلانك لهين ذاتك بلانك وسمانية هذا أدو بلانك لهين بلانك يكون سمانية dadka kala ku sameeyay خلاص بلانك ما راعي بلانك ما انت waxa maxaa wada korsanay maxaa baaqi maxaa dhabarki uber faaqa uber loo korsanay barito la Holland ba loo saaray waan ku boodinaa ka kale saan damana talag ma loo saaray waad ku boodi uun al akhirana waa la qabto waan soo aasaday bal qoran ما يكسان كل بقف وصو آسينا ما وصو نقولنا سماها هي ما تيل بقى ما نقصو نقولنا بلاني قساو جسد بالقصو آسي ولا صو نقولنا هذنا الحياة ليست كلها يا أخي بورنا ضفر يورد معها مسكحة قرمي وحلي قلبي قرمي وحلي جيركي قرمي وحلي يا مركها قفك بني عندك وينو إصحابه هي وين مركها وين خطية بلانك سمينا كتاب في إنجليش بكو قريه كتابك عربي نكون فريق قريه كتابك نين قال قري ستيفن ما dhahdaa waxa dhahdaa todobada caado ee qofka najaxay todoba dhaqan ya todobada dhaqan ee qofka najaxay baa dhahdaa dhaqanada ugu dhaqan waa todoba dhaqan imika wuxuu qoray toban buu qoray dhaqan sideedad ku sax buu qoray waxa ugu macaan ee kitaabkaasi ku jira waxa weeyaan dadka adduunka wax taray ee noloshoodana wax taray ee wax ka tagay
maxay sameeyeen toddoba dhaqan bay raaceen marka inaan dhaqanada kitaabka la akhriyo hala iibsado hala isku dayo waa si fiican buu qoro ku jeclaysiinaysa marka hala akhriyo wuxuuna ninkaasi sheegay culimada taqriirkuba inaan la isbedelayo da male inkastoo daariq suweydaan idhahda sheekh dhahdo reer kuweyda wuxuu dhahdaa hadduu qofku 55 dhaafo isbedel ma karayo soo bedeli karo anoo 55 waan gaadho aadano laakiin waxaa la dhahdaa waxay dhahdaan culimada uu ninkaasi ka mid yahay la mala taqyiir anugu taasaan qaba maxaa taa ku qabaa nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam xasaan ibnu saabit wuxuu islaamay isagoo 60 jira muxuuna dhintay isagoo 120 jira 60 sano dagaal buu ahaa 60 sano muxuu ahaa muslim buu ahaa marka 60 sano ku islaamay taqyiir shaamila ku dhacay gabay xun buu akhrinay gabay fiican buu akhriyay wuxuu difaacay wax yar ma la yani reerkiisa islaamku difaacay uu isbedilay tasawur uu isbedilay okay Umar bin Khattab isagoo in islaamay Usman isagoo in islaamay way isbedileen anagu waxa naga dhaadhacsan waqtigii la isbedilay waan soo dhaxmay carruur baan nahay la oo mudadana wax ku baran karaa la waan laazimnay darsiga horteena sheekh Muuse soo mari jiray anaa saaray waan laazimnay waxaan wadnaa imisa waa sanadkii afraad waan laazimnay alxamdulillah لازم كان وصي وضعنا لكن وين يرى تطور هذا ايفولوشن ما انت كنت تجربها الحمد لله الى halkii un fadhin laakiin halkii un inaan fadhine halkii han ka soconno han istaqiimina insha Allah orano war maxaan baranay maxaanan baran maxay noo kordhay maxay naga maqan jazakallah han dhamay horta dhamayo waan dhamayna khalaas jazakumullah khayran wa mahadsantiin intaas insha Allah waanayga ahayd iyo hadal إن شاء الله درسيني إنه بدلي سنبس إن شاء الله إنه حد ضمبه يدرسيني إنه صنعون شيخنا وكوي